alla dumarku naxariis badana ninkan isaga oo cararaya ayaa waxa uu ku dhuumanaya gabadhan meesha wax ku gadanaysa hoosteeda iyaduna waa ay qarinaysaa inta kadib waxa imaanaya ninkii cayrsanayay waxa uu weydiinaya inay aragtay nin ordaya oo meesha maray waxa ayna ku leedahay ma arkin cid meesha martay laakiin nasiib darro markii uu ka jeestay ayaa waxa uu arkaya ninkii uu cayrsanayay kabihiisa oo meesha gabadha agteeda yaala ninku kabahan ayuu watay ee ma ii sheegaysaa mise gacan ayaan ku qaada ayuu ku yiri gabadhii iyaduna waxa ay leedahay aamin anigu waxba ma arkin kabahana maanta oo dhan ayay meesha yaaleen inta kadib isaga oo aad u xanaaqsan ayuu gabadha lacag siinaya waxa uu ku leeyahay lacagtan qaado runna ii sheeg ninka ma aragtay markii ay lacagta qaadatay iyadoo aad u faraxsan ayaa waxa ay ku leedahay ninka aad raadinaysaa halkaas ayuu sii ordayay isaguna inta kadib waa uu ka tagayaa ninkii meesha ku dhuumanayay inta uusan soo bixin ayaa waxa imaanaya nin kale waxa uu gabadhii weydiinayaa ma aragtay laba nin oo is cayrsanaya ma arkin ay dhaaf ayaa iyaduna ugu jawaabaysaa inta kadib ninkii dhuumanayay ayaa isaga oo cabsanaya meesha hoose ka soo baxaya shukran ayuuna gabadhii ku leeyahay iyaduna waxa ay ku leedahay doqon yahu dadka ka xoog badan iska dhaaf ninkii isaga oo cararaya ayaa waxa uu soo agmaraya laba nin oo meel taagan waxa uu ku dhuumanaya guriga ay ku jireen gadaashiisa inta kadib ninkii cayrsanayay ayaa labadii nin u imaanaya waxa uu weydiinaya inay arkeen nin ordaya oo meesha maray gurigan gadaashiisa ayuu ku dhuumanaya ayayna ku leeyihiin ninkii miskiinka ah isaga oo daal la fadhiya waxa arkaya ninkii cayrsanayay waa uu ku soo ordaya inta uu imaado ayuuna qoorta ka qabanaya isaga oo raba inuu garaaco ayaa jirib caloosha looga dhufanaya markii uu xanuunsadana ninkii waa uu ka cararaya labadoodii iyaga oo is cayrsanaya ayaa waxay ku soo baxayaan gabadhii ninka qarisay oo meeshii karooto ku gadaysa ninkii miskiinka ahna waxa uu ku calacalaya gabadhii si ay uga celiso ninkan cayrsanaya inta kadibna waxa ay ku qaylinaysaa ninkii wax bursanayay waxa ayna weydiinaysaa ninkan sababta uu cayrsanayo iyo waxa uu ku haysto isaguna waxa uu ku leeyahay wax ka galay mala ninkan sababta aan ku haysto iyo sababta aan u rabo inaan u garaaco gabar aad u kibir badan ayaa tahay ayuuna u raacinaya ninkii miskiinka ana waxa uu gudagelayaa inuu aad uga calacala gabadhii si ay wax ugu qabato ugu dambeyntiina gabadhu waxa ay keenaysaa fikrad cajiib ah waxayna ku leedahay haddii aad ninkan taabato booliska ayaan wacaya waxaana ku leeyahay ninkan aniga ayuu rabo inuu dhibaateeyo ninkan kalena waa uu iga celinaya sidaas ayuuna ninkan u cayrsanaya oo uu raba inuu garaaco ayaan booliska ku leeyahay ayay ku tiri inta markii lagu dhahay oo gabadhii ay tiraahday boolis ayaan wacaya meeshii waa uu isaga tagayaa ninkii miskiinka ah waxa soo weydisa gabadhii ujeedada sheekada markii aad u fiirsato waxaad ka dhiminaysaa naxariistu ay dumarka leeyihiin iyo sida mar walba ay ugu fiican yihiin kala badbaadinta iyo nabadinta dadka waadna arkaysa gabadhan muuqaalka ku jirtay sida ay ragga u kala maareysay ninkiina isagoo la taaban ay u badbaadisay haddaba daawada haddii aad xiisaynaysa muuqaalada noocan ah si aan u soo badiyo ha hilmaamin inaad like saarto page-kana aad follow soo dhahdo asxaabtana u share garayso waad ku mahadsantahay daawashadaada waa aniga Axmed Shuuqo idin leh ciid mubaarak